بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وبرخ الله عبد القادر حسن كان من هذا مقالة مقدش barkan maadaama dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool ka mid tahay magaaladana saafle aad oo booleysan waxaan ku weydiinaynaa dabcan wadanka shaqaalaha ka jirto dhalinyaro waxaad isleedahay ugu antahay طبعا وحاوي وحياة سامين بدنا جرو dhalinyarada ku saabsan oo waxa kamid jaamacado tirabato dad badan ka soo bax ka soo qalin jibiya oo ardayda tasoo baran oo aan jirin dawlad oo arintaas kaabis oo ama caawinayso ama shirkado hay'ado shisheeye oo maalgelin dhalinyarada ku sameynaya laakiin waxa isdii karaa shaqada weyn uu horeeyay waxa way dhalinyarada aqoon iyo fikrad ay keenaysa karin ay aaminsan yihiin inay tahriibaan ay baxaan taas isdii karaa inta ugu badan caqabadaha keeni kara dhalinyarada shaqalaan ku dhacdo wallahi waxa way waa isdii karaa waxa ugu horeyso xeebta ugu horeyso waxa way bejiska waxa aan filayaa caalamka waxa laga sameeyaa intaasoo milyan lacag doolar laga sameeyaa waxa dadka dhalinyarada isku imaadaan ee fikrad ay abuuraan oo lagu saabsan oo lagu maalgelinayo sida badaan camal clinic kamid ah ee la asaas oo ka qayb qaadata nadiifinta qurxinta badaha sababtoo ogna qaar waxa jira xafladaha aroos lagu qabto xeebaha waxa isdii kara fikrad badan ka dhalan karta dhanka xeebta aad joogtid saacanba rajtiif waa ku dhawahay magacayga waa Cabdiqani Cumar Ashkir wallahi shaqa la'aanta waxa keeni kara waxyaalo sababo badan oo wadankii waa aragtay amnigeeda mashquulkuna sidaba hadda waxa keenay waan jeclahay TikTok-gii waa dadka waalaya TikTok waa wax hadda lagu mashquulinayo oo dhalinyartii dadka soo kacay oo bixiyay qof wax bartay oo waxa laga helayaa maanta master wato oo aan wadanka ma aragtay ana shaqo ku hayno guriga hooyis bris ka cunaaya wali waka wallahi shaqo abuur waa loo sameyn karaa waayo wadanku markuu amni ka jiro oo maanta oo amni ka jiro shaqo abuur waa loo sameyn karaa dhalinyarta kuwa wax bartay iyo kuwa kalaba والله شغلانت waxa ugu wacan macnaha waxa way dalka xogaa maartay xalqado yar ka jiro mideeda kala adduunka waxa way dadka waxa shaqaaleysiyo waa dawladda aniga dawladdeena waxa way in dad shaqaaleysiiso martay in ay jaabkeeda la eegi jirtay taa bis waxalba markii inay fadhiga ka kacan dadkan ay shaqaaleysan ninkii wax bartay inii wax baran waxa way qofka bilaadka meel buu ku toorayaan ama wax barto ama yuusan baran wallahi horta fursado iska banaa laakiin in kastoo tabar iska jirto tabarta waxa la rabaa in la daboolo haddaan la daboolin waxa wararkeeda leedahay markii dawladda waxa fartiida ku fiiqlay inay arday dadka wax ka bedesho ummadana waxa waxba la rabaa in wax laga bedelo shaqadana waxa si fiican ugu socon dalkan waxa horumar la insha Allah